dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa cabasho xoogan ka muujiyay sare u kac ku yimid qiimaha leydhka ee magaalada Laascaanood. shirkadda leydhka ee Gurmed oo fariimo u soo dirtay qaar ka mid ah bulshada ayaa sheegtay in qiimaha leydhka oo markii hore ahaa 0.3 laga dhigay 0.8 oo ah sare u kac boqolkiiba 50, waxaana shacabku sheegay inay tacaddi ku tahay sare u kaca baaxadda leh ee ku yimid qiimaha leydhka oo markii hore gaadhay 0.3 iyo wax ka yar, kaasoo ay bulshada u soo dhaweysay. waxayna bulshadu sheegeen in arrintani caqabad ku noqonayso kobaca dhaqaalaha ee magaalada Laascaanood. xirbararka leydhku waa khalad 3.3 waa 3.8 maxaa gaarsiiyay waa mamnuuc laguna shidan maayo sida faynuusyada iyo baa la shidanayaa maxaa leydh triga iyo dababka hidaha iyo dhaqanka dalka anaga leh dahabshiil ma laha shirkana ku galsa sheerka bal hada day kuli ka soo dhamaata solar barsaana hogulana leesko ya dahabshiil la hogulana kowde wallahi billahi talaadi kala qarxinaa dadka awal badhiga waa noogi jireen oo waa dhiiranayeen leesko oo waynu ogeyn nin baa bil saddexina ku noqdo iraana wax idin qabanayo shicibka yaako yar inoo dhigay bil saddex buu ina ku noqday isagiina ninkii ilaahay ka baqayana waynu eegaynaa kii toliimana hadda isugu hamrateen waynu eegaynaa laakiin kelmad baynu inagu odhanayna dalka iyo dadka iyo diinta iyo duuga jiritaanka dallo iyo abaalkan u dhigtay doxorka naafeeya diiwaanada sheegaya duul markhaatiya xaqdarro iyo wixii dayn qabaa waa dacwaysane dib baa loo xisaabtamay mar aan la istafirahayn waa la doogayaa buuna yidhayaan la dacroon haddana waxaa laygu yidhi masaj baa shalay ku arkay mobilka masaj dadka loo soo dirayo 0.8 baa la gaarsiiyey oo wax unbelievable wax la qaadan karo maaha waayo cid bixin kartaa ma jirto dadka magaalada jooga waa dad aad u jircisan waa dad dan yara dadka shirkadaha haysta masajkan u dirana waxa weeye waa dadka magaalada degan waa dadkiini waa abayaashin waa adeeradiin waa abtiyadiin waa seediyadiin dadkani dad waxaan qaadi karmaa reer Laascaanood waan isnaqaanaa guriguri baan isugu warhaynaa qof waliba inta wax bixin karta iyo inta wax bixin karin inta normalka ay dhexdhexaadka waan isugu warhaynaa hadday midna bantu aid ka dhigtay midna $1 ka dhigtay saakana guriyihii laga jaray leedahay ka gurayaan waxa weeye in Jabuutaawi markii uu magaalada yimi oo shirkadda keenay tallaayay uu ahaa oo garab istaaga uu lahaa shacabka reer Laascaanood maanta hadduu bantu aid ka dhigay waxa weeye waa hawl macnihii si kala ah oo lacagtii campaign-ka ka gashay ayaa labada shirkadoodba doonayaan inay ummadda ka soo saaraan shabeeha buutayd baa laga dhigay sababta looga dhigayna waxa weeye ganacsato kale ayaa ku wareegtayna waxaanu leenahay shirkadda aad baan ugu cabananaa saaka hadday codonnahay bulshada reer Laascaanood maxamed Jabuutaawi ballan baan isku ogeyn ballankan isku ogeyna waxay ahayd inuu shirkadda noo jabiyo dabka leydhka wuuna arkaa GCB-ka hadda aan wato waa ninkii isagu ameeyay hantida waxaanu leenahay hanaga bixin inaan wax alla ku qabanin waxaan oran lahaa maxamed Jabuutaawi reer Laascaanood wuu hiliyay markii hore oo inta tirib uga dhigay iyaga la garan waayay marka in lagu qaaligareeyo way istaahilaan shacabka Laascaanood gobolka Sool waxaanu ka cabananaa in Jabuutaawi oo ah kulmiye oo anaguna nahay wadani oo sida daraad nagu korontada uu yiri markii hore waa 23 adeena ka dhigay 28 Gurmed dadka maxay haytay waa u gurmatay xaqiiqatan waana u ducaynay waxaanu moodaynaa inay sii soconayso dadkana waxaan sii soconay lagu lugooyo ma wanaagsana waxaanu haddaba la iska u sheegaynaa dadkani waa dad dan yara waa dad maxay haytay idinla soo kifaaxay waa dadkii maxay haytay ilaa iyo maantaad bilowdeen dee lacagta aad ka gurayseen xaq bay idinku leeyihiin inaad u naxariisataan inaad u dhimrisaan inaad noo naxariisataan oo dadkiinii baanu nahay aad dhinac walba eegtaan aad tiina qura eegtaan cuna qabatayntii hore soo celisaan looma baahna leydhka la isku daray anagu dan baa noogu jirtaa waayo bilkow shaqaala ka shaqeeya magaalada ganacsaduna danta waxay ugu jirtaa boontaari haddana boontaari baa laga dhiga kawdhade dee anagu waxaan soo dhaweynaa leydhka la isku daray dee wax fiican buu ku yeelanayaa maxaa dhawan muxuu $2 iyo $1 barbal isticmaalti haddana boontaari maxay tahay maxay leedahay irka waxana laga iibshaa hadaanu nahay dadka shicibka ku nool Laascaanood waxa weeye cidhiir badan baanu qabnaa oo waxaanu qabnaa maxay ahayd caqabado badan baanu qabnaa oo baacmishiga nooma naxariiso oo leydhku nooma naxariisaan oo maxay ahayd Gurmed ninka meesha leeyahay Gurmed iyo lasto waatiina hayn jirtay maalin dhayd hadii bisha lagu yeesho isagoo korontada saaran baad arki jirtay waxa weeye hana loo naxariisto waxaanu rabnaa anaku shirkadii maxay ahayd oo noo naxariisanayaanu rabnaa Gurmedna ma rabno lastana ma rabno
soolar baan wada saaranahay sida ay nabadgelyo waxaan maxamed jabuuti uga digayaa dadka shacabka ah ee masaakiinta ah ee magaalada ku nool ee bilaa shaqada ah ee agoomaha ah ee danyarta ah ee intuu leedhkii u jabiyey oo lesko aanu xoogaa ka raysanay uu maanta haddana dib ugu celiyey maxamed oo ha noqon bil saddex dadka gurigooda ay ka kaxaysa kule guri kalena aan gaadhsiinin mukhtaar cabdi jaamac wararka warbaahinta SBC laascaanood